Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo safar dhulka ah uga soo mabaxay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug oo uu dhawaanahan ku sugnaa ayaa galabtii soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Ra'iisul Wasaare Khayre oo ay safarkiisa ku heliyeen wasiiro iyo xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ayaa si heersare loogu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo. waxaana safarkiisana qayb ka yahay qorshaha Ra'iisul Wasaare Khayre uu shacabka reer Galmudug kala shaqeynayo dhismaha dowlad goboleed loo dhan yahay. dadweyne si aad ah ugu soo diyaar garoobay soo dhaweynta wafdiga uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaaraha, xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa isugu yimid garoonka kubadda cagta ee Cabdullaahi Ciise halkaasoo Ra'iisul Wasaare Khayre uu khudbad uga jeediyay shacabkii soo dhaweeyay isla markaana uu la wadaagay qorshaha safarkiisa. dalku waa inuu dib u heshiisiin galaa, dalku waa inuu helaa nidaam horumareed oo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan u adeegaya. sidaas daraaddeed ayaa socdaalkeenu wuxuu ku salaysnaa in la helo nidaam Galmudug tii aad soo bilowdeen oo dhammaystiran. sidaas daraaddeed waxaan rajaynayaa inaad noo oggolaataan inaan idinla dhammaystirno maamul goboleed Galmudug ah oo loo dhisay si furan, cadaalad ah, qof walba xuquuqdiisa uu ka helo, qofna aanu sadbursi ku samayn qof kale. Ra'iisul Wasaare Khayre oo mahad celiyay dadkii soo dhaweeyay ayaa ammaan u jeediyay mas'uuliyiintii waqtiga badan geliyay jiritaanka Galmudug, waxaana ka dalbaday bulshada reer Gaalkacyo in si wadajir ah ay u dhowraan adkeynta isla markaana qayb ka qaataan dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. waxaan leenahay geedi socodkii ay soo bilaabeen raggaas iyaga ah oo qaar ka mid ay halkan joogaan oo ugu horeeyo Generaal Qaybdiid iyo madaxweyne xaaf iyo kuwo kale uu caalim ka mid yahay, Cabdikariin Guuleed ka mid yahay. kulligood waxay soo qabteen shaqo, kulligood halkan ay ka soo jeedaan, kulligoodna waa u mahad celinaynaa. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay socdaalkiisa Gaalkacyo ay qayb ka tahay horumarinta iyo dhammaystirka agabka ka dhiman ciidanka ku sugan magaalada Gaalkacyo ee ka shaqeeya nabadeynta iyo amniga magaalada. waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay halkan dib u heshiisiintii ka dhaxday ciidamadii isku dhafka ahaa oo markii madaxweynuhu yimid laga hirgeliyay inay weli shaqaynayaan. waxaan u imid iyadana inaan sii dhammaystirno, sii xoojiyo, wax walba agab ah oo ka maqanna loo hagaajiyo haddii Ilaahay yiraahdo. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ka hadlayay taariikhda magaalada Gaalkacyo iyo shacabkeeda ayaa sheegay in looga baahan yahay inay qaataan door muhiim ah isla markaana ay noqdaan kuwa ka dhabeeya taariikhdii lagu yaqiinay. waxaan aaminsanahay si loo helo Soomaaliya dhammaystiran inay muhiim tahay in la helo Galmudug dhammaystiran. waxaan aaminsanahay in la helo Gaalkacyo horumarsan, toosan oo tayaysan. ku dhowaad 30 sano ayay dadka Soomaaliyeed dib soo arkeen, idinkuna aad qayb ka aheedeen in dadka Soomaaliyeed dib la isugu keeno. midnimada ummadda Soomaaliyeed waa muqaddas. Gaalkacyana waxaan leenahay waxaa tahay laf-dhabarka dadka Soomaaliyeed taariikh ahaan. waagii hore iyo haddaba waxaan idinkugu yeeraynaa markaa doorkiinnii hore oo weli taagan si ummadda Soomaaliyeed horumarka ay bilowday ay uga maray dhaliso. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo Galmudug ku sugnaa muddo 15 maalin oo xiriir ah ayaa intii uu ku guda jiray socdaalkiisa lagu baadigoobayo dhismaha dowlad goboleed dhinac kasta ka dhammaystiran. waxa uu kulamo wada tashi ah la yeeshay dhammaan qaybaha kala duwan ee deegaanadii uu booqday, waxaana laga gaaray guulo waaweyn oo ay qayb ka ahayd xaqiijinta himilooyinka shacabka Galmudug. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Gaalkacyo.